marka soo dhaw magacaaga walaal adigoo markaas naga waramayo dareenkaaga kadib markii xalay fagaaraha kaalada sugaysan kaasina ka dhacday jawigeena waa aad u fiican in loo furo laamiga ama jidka dadka oo magaalada ah xalay toonaysan hawl culus baa ka dhacday marka labada dhinac oo ugu balstoodisay marka magaalada maanta way iska xirneed laamiyadu way xirnaayeen marka aad ugu faraxsanahay in laamiga loo furo jawiga aad hadaayo ku arkaysa iyo had sidoo yahay dadku sharax dalkiisaas maxaa ka socda maxaa ku arkaysa hadda waxaan ka socdo aad bay macnaha uu maartay shacabka hadda iyo laamiyadu ugu qulqulayaan awal waa tiq waa xirnaa ciidamada kali ah baan joogay waa maartay joogay haddana looga jirto waa haddana soo maray marka wax macnaha maartay mashaakil ah jiraan waa fiican aad ama saddex waa tahay waxa uu ahaa daawadayaal kaasi mid ka mid ah dadka magaalada Muqdisho oo halkan markaas ku soo daabasho tagay si uu arko xaaladda guud markaas halkan ka jirta galbeedka waxa ka codsanaya inuu halkan ku istaago marka xaaladda daawadayaasha ay u arkaan maadaama halka daawadayaasha ay doonayaan ay tahay inay arkaan xaaladda samsiyaadka soconaysa nadaafadda iyo sidoo kale naleenta haddii ay larar qabeen ama larar u shaqeeyeen ayaa dib loo hagaajinaya nadaafaddiina waa u jeedaan oo nadaafadda loogu talagalay oo qashinka iyo waxyaabihii halkan ku jirtaan kuwa furan ama xaraadii qolfihii dagaalka ka nidaaminaya oo sidoo kale ayaa halkan ku sugan oo nadaafadda maadaama bilicdii caasimadda ay markaasi ahayd halkan mid aad u hagaagsan maalmihii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya ayaa markaasi haatan si buuxda u joogta magaalada Muqdisho guud ahaan marka loo eego fariisimihii lagu yiqiinay oo ay joogaan ciidanka booliiska iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan xaramcad halkan gorgor ayaa joogay saacado badan ayay markaasi u xirneed sidoo kale saacado ka hor waxaa ku sugnaa hotel naasaha blog ama inta loo yaqaano degayaashii hore taasi oo markaasi shalay halkan doolatay xaaladu ku yimid si ay markaasi maalinta jimcaha maanta ku beeneed ay dadku u yimaadaan laakiin ma dhicin oo waxa xalay dhacay wax badan oo markaasi ka mid ahaa in dagaal halkan uu ka dhaco iskaaseen ciidamo halkan jooga ah ay ku dhex marto oo dowladda iyo mas'uuliyiinta kala sanaa taas ay yeeshee mushrixiintii ayaa markaasi halkan ka guuray oo markaasi ku guuray halkii ay hore u degnaayeen jawiga taalada iyo degmooyinka waqooyi ayaa ah caawa mid degan oo markaasi ka fiican sidii saacado ka hor ay ahayd maadaama dadka degan degmooyinkan ay markaasi ka murugoonayeen ama walwal badan ay ka qabeen waxa ka dhici kara fagaaraha taalada Muqdisho oo markaasi ciidan dowladda oo markaasi gaadiidka waaweyn kuwa dagaalka ah markaasi watay oo dabaabaadka loo yaqaano sida beebaha hadaba hadda jawi waa degan yahay oo barnaamijkii ayaa maraysa sida ujeedaan oo waa shaqeynaya noocyada gaadiidka ee halkan lagu bartay daawadayaal mar kale waxaan leenahay ugu wanaagsan fagaaraha taalada Muqdisho ayaan kaga hadlaynaa dad badan waxay soo qorayaan taalada waa kaas oo ciidankii nabadgelyada ama ciidanka NISA ayaa ku jiro oo markaasi ammaanka hadda gacanta ku haya inkastoo ciidamada markaasi dowladda ka tirsan hadda booliis ayaa halkan ka soo socdo ciidanka booliiska ayaa halkan ka socdo oo markaasi ammaanka qayb ka ah
waxaan u malaynayaa in fariisninkii ama bar controlkii lagu yaqiinay hadda ay la wareegayaan si markaas hawshoodii caadiga ah ay u wadaan booliska kulay waa u jeedaan daawadayaal waa hawshooda caadiga ay halkan ku wataan